daawadayaal war naga soo gaadhay hadda deegaanka Boocame ayaa waxaa la sheegayaa in halkaasi saansan dagaaleed oo u dhaxaysa ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland warar kala duwan ayaa halkaasi ka soo baxaya kala wararku waxa sheegayaan in wafdi ka socota Soomaaliland uu hogaaminayo gudoomiyaha Sool oo magacaaban Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye ayaa saaka gaaray deegaanka Boocame ee gobolka Sool wafdiga oo galbinayaan in lagu qiyaasay 45 gaadiidka dagaalka ah ayaa waxa la sheegay in ay halkaasi gaareen oo waxaadna ka fahmi kartaa in halkaas xoogay ay ka jirto saansan dagaal oo aad u daran inkastoo ciidamada Soomaaliland ee ugu faraha badnaa ay galbinayaan gudoomiyaha in ay halkaasi gaareen dadka deegaankaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha iyo sidoo kale wafdiga la socota sawiradan aad halkan arkaysaan daawadayaal waa gudoomiyaha gobolka Sool oo markaasi halkaasi gaaray waxa soo dhaweeyay dhalinyarada halkaasi iyo sidoo kale cuqaasha waxgaradka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada inkastoo halkaasi wafdiga waxa jiray iyaguna wafdi markaasi ka socota dhankaas iyo Puntland oo uu markaasi dhinaca kale uu hogaaminayo sidoo kale magaalada Boocame waxa ku sugan wasiirka duulista hawada ee garoomada Puntland xildhibaano laga soo doorto degmada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool ee Puntland u magacaaban warar kala duwan ayaa ka soo baxaya inkastoo labada qayboodba ay markaasi qaybta kale ay joogto haddana wararku waxa sheegayaan in gudoomiyaha Puntland u magacaaban iyo sidoo kale xildhibaanadaas in ay iskaga baxeen magaalada markii ay soo galeen gudoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland u magacaaban sidoo kale dhinaca kale ciidamada Puntland xalay ay geysay duleedka Boocame ayaa badankoodu ku laabteen dhankaas iyo Tukaraq kadib markii saaka aroortii hore ay ciidamada Soomaaliland ee ku sugan Tukaraq ay markaasi hub culus ay ku soo rideen dhankaas iyo taliska ciidamada Puntland oo markaasi ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland wararku waxay sheegayaan in labada ciidanba ay soo fadhiyaan oo waftiga kale hadii uu weeraro ay markaasi xabadu sidaas ku balaaman karto waxay wararku sheegayaan in ciidamada Puntland ay ku laabteen fadhiisimahoodii ciidamada Soomaaliland aan idhaahdo iyaguna ay deegaanka markaasi Boocame ay waftigii ay la socdaan oo gaadiid aad u fara badan gudoomiyaha Sool ee markaasi hogaaminaya waftiga gudoomiyaha gobolka Sool aan idhaahdo Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye ta hoose ku helana ay waxay sheegayaan inay u sii gudbi doonaan dhankaas iyo dhinaca hawdka gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Gerin Karfood oo ka tirsan isla Boocame halkaasna qada karin loogu sameyn doono oo waftigu maanta halkaasi qaybo kamid ah joogayaan kadibna ay ku soo laaban doonaan deegaanka Boocame aan idhaahdee daawadayaal deegaanka Boocame ee gobolka Sool mudooyinkii ugu dambeeyay waxa ku hirdamayay dhanka Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland oo midka kale uu mashaariic geynayo oo marba tagayo inkastoo inta ugu badan ay Puntland ay deegaankaasi gacanta ku hayso haddana Soomaaliland ayaan qudheedo ka marnayn oo mashaariicda ugu faraha badan deegaankaasi geyso haddaba aad ka muuqateen gudoomiyaha gobolka Sool ee Master Diiriye uu gaaray waxa jirta wafduud ka kala socota mararka qaar Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland oo marka ka dambaysa qaybiba tagto oo deegaan markaasi marba maamulkii halkaasi uu tagi karayo wali dagaal rasmi ah oo ciidamada Puntland ay isku farasaareen kama uusan dhicin deegaanka gudihiisa balse waxa jira deegaamada ku hareeraysan oo gacan ay sula tageen ciidamada Puntland iyo sidoo kale kuwa Soomaaliland waxa jira dagaalkii weynaa aniga qudhaydo aan tagay deegaankaasi deegaanka Boocame waan warbixin waagaas ka soo diyaariyay deegaanka Boocame deegaan aad weyn weeye waagaas warbixin aan ka diyaariyay dadka deegaankaasi waxay si guud ay u sheegeen in ay markaasi dad Soomaaliyeed yihiin oo wixii markaasi maamulka Puntlandna uu qiyaastay u jira in aad u yar xagga Soomaaliland oo magaalada Soolna ay haysato Soomaaliland ay iyada qudheedu u jirto in yar marka waa deegaan saasa ciidamada Puntland marar badan bay isku dagaaleen waxayna waqtigaas ahayd baan jeclahay 2018 xilli Rabadaan ah oo dagaalo aad u culus ay ka dhaceen oo xag Soomaaliland ay soo gaadhay deegaanka Godqoobo lagu yiraahdo oo aan waagaas isla deegaankaasi joogay oo dagaalada aan warbixin ka soo diyaarin jiray anoo markaas u shaqeyn jiray telefishinka Ariel iyo sidoo kale telefishinka Som News oo waagaas aan halka u joogay daawada wixii warar ee ka soo kordhay halkan ee dib soo galin doona isha ku haysa aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan deegaanka Boocame iyo sidoo kale Soomaaliland iyo Puntland oo
fadlan waxaan idinka codsanayaa youtube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara. youtube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin.